hogaamiyihii saddexaad ee itixaadka Soviet ama Soviet Union oo la oran jiray Nikita Khrushchev ayaa nin wariyay wuxuu weydiiyey Talyaaniga ma ku duulaysaa sababtu lahaa ma ugu duulaysaana waxay ahayd Maraykanka saldhig ka samaystay dabeedna Nikita Khrushchev wuxuu yiri maya Talyaaniga ku duuli maayo laakiin meel kastoo saldhig Maraykan ku yaalo waanu ku duulaynaa waxaan ka digayaa inay laascaarood noqoto meel lagaga soo duulo Somaliland waxaan u mahadnaqayaa dadka reer Somaliland gudo iyo dibad golayaasha qaranka axsaabta qaranka culimada fanaaniinta iyo abwaanada saxaafadda qaybaheeda kala duwan haweenka iyo dhalinyarada iyo intii kale aan ka tagayba ilaahay baa mahad oo dhan iska leh ma jirto maalin ay Somaliland ka midaysan tahay ma jirto maalin ay ka kalsooni badan tahay midna umay muujin nasiib darro dawladda Soomaaliya ee hadda joogta waxba kamay baran taariikhdii hore iyo dhibtii dawladdii Soomaaliya gaarsiisay shacbiga Somaliland ee isugu jiray xasuuq qax iyo burbur dawladda Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay waxay aad uga xumaatay اعترافك Somaliland دولة Soomaaliya waxay aloosaysaa duulaan ay ku soo qaado Somaliland waxay dayuurado laga leeyahay dalka Turkiga laba dhigayaan ciidamo iyo hub la keenayo laascaanood waxa uu Xasan sheegay in isaga iyo dawlado ay xulafo yihiin ku soo duulayaan Somaliland si Somaliland ugu celiyaan inay Soomaaliya ka sii mid ahaato dawladaha Xasan ka sheekeeyay ay xulafada yihiin way soo bixi doonaan waxaan uga digayaa inaanay ka mid noqon faragelinta Somaliland ka qayb noqoshada xasilooni darro ka dhalata Somaliland ama geeska Afrika maanta dawladdii Soomaaliya ee xamar joogtay aan cidna xukuumo sidii Saleebaan sheegay kala badh ama ka badani waxay joogaan laascaanood xamarna xaalkeeda waynu ka warhaynaa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiina waa la sugayaa inuu laascaanood yimaado waxaan u sheegayaa shacbigayga dawladaha aanu dariska nahay dalalka Carbeed iyo kuwa Islaamka qaramada midoobay ururka midowga Afrika dalalka EU-da in arrintaasi tahay daandaansi faragelin qaawan oo aan geedna loogu soo gaban iyo duulaan cad waxaanu ka digaynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta falalkaas mas'uuliyad darrada ah ee xukuumadda Soomaaliya ee Xasan Sheekh hogaaminayo oo saameyn doonta nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika dawladdii kacaanka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxay dunidu u qirsanayd inay ahayd dawladdii ugu xoogga weynayd Afrikada madow bal Soomaalidu ha isweydiiso xagii ku dambeeyay dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxaan isleeyahay dawladda xabaasheedii Hargeysa ka qodan tahay dayuuradihii iyo taawangiyadiina waxay sulan yihiin suuqyada Hargeysa hadfaawina markii ugu dambeysay Siyaad Barre la hadlayay
markuu ciidamadii ku soo dhameeyay Hargeysa iyo Burco wuxuu ku yiri keen dabaabadii haray aniguna waxaan leeyahay bal xasano maanta keen dabaabadii haray aniga iyo shacbigaygu yar iyo weyn rag iyo dumar waxaanu diyaar u nahay aniguna aan ku horgelayaa inaan dhiigayaga iyo naftayada ku difaacno dhulka Soomaaliya waxaan shacbiga ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan difaaca qaranka waxaan hoosta ka xariiqayaa inaan Somaliland cidna duulaan ku ahayn cid kasta oo duulaan ku soo qaada Somaliland waxaanu bari doonaa casharo aanay weligood ilaawin anigu laasacaanood duulaan kuma yihiin waxaase ku kabayaa arrintaas sheekadan ninkii hogaamiyihii saddexaad ee Itixaadka Soviet ama Soviet Union oo la odhan jiray Nikita Khrushchev ayaa nin wariyahay wuxuu weydiiyey Talyaaniga ma ku duulaysaa sababtu lahaa ma ugu duulaysaana waxay ahayd Maraykanka saldhig ka samaystay dabeedna Nikita Khrushchev wuxuu yiri maya Talyaaniga ku duuli maayo laakiin meel kastoo saldhig Maraykan ku yaalo waanu ku duulaynaa waxaan ka digayaa inay laasacaanood noqoto meel lagaga soo duulo Somaliland waxaan u mahadnaqayaa dadka reer Somaliland gudo iyo dibad golayaasha qaranka axsaabta qaranka culimada fanaaniinta iyo abwaanada saxaafadda qaybaheeda kala duwan haweenka iyo dhalinyarada iyo intii kale aan ka tegayba ilaahay baa mahad oo dhan iska leh ma jirto maalin ay Somaliland ka midaysan tahay ma jirto maalin ay ka kalsooni badan tahay ma jirto maalin ay kaga adag tahay ilaalinta qarannimadeeda waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Puntland oo aan ka wada shaqaynayno nabadda iyo xasiloonida gobolka dardaarankayga ugu dambeeya